waad mahadsantihiin anigoo Allahi naqalqe oo xilligan na soo gaarsiiyay u mahad celinayo. Mahadda labaad waxa iska leh reerka Ree Cali Dhagweyn. Waayo Ree Cali Dhagweyn maanta wuxuu noo qiray inaan Ree Cali kala uusan jirin. Wadaadko museemaday baa ka hadlay wuxuu dhahay afreedumaal ma ku hadli karaa. Ree Cali waxa waaye midka banaanka jilcowlaanka markuu ku arkaday waa reedumaalaad. Ree Cali reedumaal cowliyaanka wuxuu ku aqaanay in aad reedumaalta. Wax reedumaal kale ma jiro. Ree Cali waa jamac magacaas uu leeyahay banaanka markuu jiro. Waxaan idin sheegayaa Allah subhanahu wa ta'ala waa mahadda iskale. Mahadda labaad waxa iskale gudigi Ree Cali oo arintan waqti ku qaatay. Mahadda waxa iskale chairmanka reerka dulqaadka uu u muujiyay dhibku kala kulmay xilligu habeen waqtiyo qaar waxaad arkaysaa chairmanka oo aad uga murugaysan markii magaciisa chairmannimada la sheegayo waxay tusaysaa unity-ga Ree Cali isku imaadka walaalnimada wanaaga weynida Ree Cali. Ree Cali waa qarankaas oo la fududaysan karin. Mahaddaas waxaan u celinayaa chairmanka iyo guddigiisa idil reerka siduu u dhan yahay. Aniga ma kala saaraya Ree Cali. Ree Cali waa hal waxaa noogu weyn chairmankayna Mzee Cali Kaynaan. taasoo tusayso Ree Cali maanta inuu albaab laga galo iyo albaab laga baxo u qabo. Haddii la lahaa Ree Cali waa la kala xaday, Ree Cali waa la kala qayaani, Ree Cali kuuriis meel baa la geyni, Ree Cali kuurihiisa wuu wada imaaday. Waxaan ii cadaynayaa Ree Cali kuurihiisa inuu idil yahay. Adiga markaad meel iska soo bixiso yaad meel ka soo bixi. Mahadda waxaan u celinayaa chairmanka reerka inuu isku qabte nabadoonnadii ka soo shaqaysay 4 chairman oo reerka u lahaa oo chairmanka garab siinaysa inay maanta guushan aan soo gaarin. Guushi waan gaarne waana joognaa maanta xilliga alla qoray noqote waqtigeedina waan soo gaarnay. Waxaan mahad u celinayaa walaalkay Ibrahim Saciid, Mheshimiwa Ibrahim Saciid. magacaas wuu wadanayaa hawadii uu lahaa hawadeedana wuu leeyahay. waxay garab taagan midigteeda taagan Yaxya Macalin Isaaq. Yaxya waa nin yar oo soo hawooday asagana hawadiisii maanta haddaad way 5 sano waa iska 5 bilood tii horaan la yaabanaysay nagu dhamaatay. haddii ilaahay waqtigeedu u nagaarsi waan gaarayna. waxaa kaloo jira nin naga maqan oo qurbaha jiro oo hawa soo qabate walaalkaan waan wada kulanne. maanta qadarti haddii qalinka ilaahay igu dhige bari waxay noqon kartaa Yaxye ama Ibrahim ama Xuseen. midkii alla soo qoro waxay noqonaysaa taariikhdii. qadarta waa sida malakumoodka oo kale. aniga waxaan idin cadaynayaa reerkayga walaayada say iga soo qaadeen waxaa ii imaate waa lagu soo qaatay. taasoo cadaynayso malaha aniga hadda wax aan suubiye ama dadaal aan ka muujiye Ibrahim ama dadaal aan ka muujiye Yaxye ma jirin. waxa uun jirto qadarta maanta aniga aan lahaa qalinkii baa iigu dhace. walaalahayna Ibrahim iyo Yaxye way tanaasuleen. tanaasulka iyo Xuseen oo soo akhbaarti soo faray inuu soo tanaasulo. maanta aniga qadarti baa Ilaahay iga dhigay. waxaan idin mahad celinayaa juhdigii la soo galay reerka isku imaashada reerka. maanta anagoo nin walba uu qasidkiisa soo dhaafay maanta geedkan weel dooni soo istaajisay talagal iyo arrin Ree Cali ay leedana u soo istaagay. marka waxaan idin cadaynayaa maanta hadal badan inaan sii wada marabi. maalin farxadeed waaye. maalin waxaa waaye reerka Ree Galmudug baan ka maqan jirnay madaxaana furan. maanta reerka madaxa wada furan.
maxaad ogaanaysiin reerka inuu hal yahay, reerka inuu leeyahay ilin laga soo galo, reerka inuu leeyahay ilin laga baxo. ninkii been isku sheegayo reerka waa idil yahay, waxbana kama maqno. ani iyo Ibraahim iyo Yaxya isku gaari baan galaynaa. aniga waxaan helay Ibraahim wuu helay, ani waxaan helay Yaxya wuu helay, ani waxaan helay Xuseen wuu helay. aniga maanta waxaan qabto, aniga reer Cali baan ahay, aniga reer fulaan iyo reer fulaan baan kuma dhahay. aniga nin reer Cali ah oo reer Cali ah oo reer Cali baan. mideentiisii, dadaalkiisii iyo waajibaadku nagu leeyahay maama soo istaagtay aad bay u qiiroonaysa. hadallada way gagafaysa. aad baan uga xumahay horta inaan soo maro iskuulkii weel dooni oo buubsan, iskuulkii weel dooni oo maama garangarinayso. annaga weel dooni waxaa naloo sheegay inay meel dad leeyahay ay tahay. maanta weel dooni adigoo salaadii gurigaada ka quraacate yaad ka codayni bari salaad, adigoo aan rafaadin, adigoo gaari lagu qaadin, adigoo aad waqti iyo xilli ka dhumin yaad soo codayni, waadna soo noqon. maanta waxa qiirada aad ugu taagan tahay waa gabdhaheena iyo dumarkeena. ayaga aad maxaad moodaysaa waxay soo mareen iyo xaaladahay soo mareen iyo xilliyihii aad aragto gabdhahayna markii intay meel istaagto waraaq ay geysato waraaqdeeda la aqbali waayo. horta xanuun aad weyn bay u tahay. annaga reerka waxaad moodaa reer Cali markii la sheego inuu dad badan dhibayo, laakiin reer Cali waa cawliyahan, waana cawliyahan. reer Cali sidiisaba cawliyahan meel loogama baxay. garabka cawliyahan buu taagan yahay. cawliyahanka nala dhashana waan ka rabnaa kuura. waxaa noogu soo horeysaa inta dariska anahay, inta raama gudda ku saabsan uu kursiga Dhamaajaali uu yahay. waxay igu qasban tahay inaan maro, aan codsi geysto, anigoo guddigaygii nabadoonnadii, dhalintii, youthkii, gabdhihii uu chairmanka noogu horeeyo oon wadano inaan reer walba u tagno, oon coalition wax la dhaho ka suubino, aan codsiga u geysano. codsigaasoo caddaynayo inaan annaga wax ka rabno. ninka reer Cali maanta kuuraha u rido Dhamaajaali degan annaga koona taray ma dhahayno. ninkaan reer Cali ahayn oo kuuraha na siiyo oo saddexda lafo cawliyaanka aan ahayn hadduu kuura na siiyo koona taray ma dhahayno. waa nin Dhamaajaali wardka ku xisaabsan, xaq uu leeyahayna inuu helo yaan ku dadaalayna. aniga inaan waxaan marag idinku furayaa inaan eexa gelin. maanta hadallo badan baa la soo qaatay waagi Axmed Nuurow, waxyaalo badan baa iska dhici kartaa inuu iska qaldamay. laakiin aniga nin meelo badan ka soo shaqeeyanahay, nin experience badan aan ahay. dadaalka reerka, talagalka reerka, wax alla wixii meesha laga qabanayo chairmanka uu noogu horeeyo, guddiga la shaqeynaaye, maamulka sidii loo joodinayo asagaa noo sheegaya. waxaan leenahay chairman waqtigiisa, maalkiisa, naftiisa u hurayaan maanta leen nasiib baan leen. annaga waayo dad nin isku soo celcelinaya reerka. horta reerka markuu bato waxyaalo badan baa ka soo baxa. intaasoo dadaalkeeda uu muujinayo. maalin baa ani sanyaro garabkaygii taagane safar baan isla galnay. safarkaas asagaa idin sheegi doona. hadda waxaan meesha saas ka dhahay ma jirto, laakiin walaalkaa markuu mas'uul yahay ama wiilkaada mas'uul yahay, maanta meeshaad istaagto xafiis walboo naga hor imaani kara ma laho. nin inaad hadda waxaa jira walaalkan Geedow, arrimo yara iska jiraan. chairmanka arrinta anigu ugu soo wareejiyay, asagana kama maarmi, garab baan ka sugayaa. arrinteedana sidii Ilaahay noogu fududeey annagoo Ilaahay la hoosgalayno yaan ku dhamaysanayna. waxaan hadalka haddaan sii wado maanta waan iska wadi karaa, farxad darteed baan u wadi karaa ilaa sa waqtigaan na siinaynin. chairmankan ku celini. marka saasaad ogaanaysiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi